muqdisho maanta waxaa ka dhacday dhacdo la yaab leh kadib markii gabar yar oo muddo 2 maalin ah la raadinayay ayaa ugu dambeyntii maanta waxaa meedkeeda laga helay digsi weyn oo dhex yaalay qol ka mid ah gurigii ay ku nooleed oo ku yaala degmada Dharkiinley ee magaalada caasimadda ee Muqdisho gaar ahaan waaxda Kaawagoday. gabadhan meedkeeda la helay oo labadii maalmood ee ugu dambeysay nolol iyo geeriba laga baafinayay baraha bulshada ayaa waxaa lagu magacaabaa Nafiso Cumar Cabdullaahi waxaana meedkeeda laga helay digsi weyn oo dusha laga sii saaray digsi kale iyo joodari si aan loo dareemin. ciidamada booliska oo gaaray guriga falka uu ka dhacay ayaa sheegay in gabadhan jirkeeda uu ka muuqday jirdil sidoo kalena laga xiray labada gacmood iyo lugaha. gabadhan oo da'deeda lagu sheegay 10 sano jir ilaa iyo 11 sano jir ayaa meedkeeda la ogaaday inuu ku jiro digsi kadib urur laga dareemay guriga oo dhan taasoo keentay in baaritaan lagu sameeyo qaybaha guriga iyo alaabta taalla guud ahaan. guriga laga helay meedka gabadha ayaa waxa uu ahaa guri ay ku noolaayeen hooyadeed iyo aabaheed waxaana sidoo kale la deganaa dad kale oo ay qaraabo yihiin waxaana dhammaantood lagu xiray saldhigga booliska degmada Dharkiinley. gudoomiyaha degmada Dharkiinley Guhaad Sheekh Xasan oo goobta meedka laga helay kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in falkan uu ahaa mid aad looga naxo. waxa uuna sheegay in meedka gabadha yar la geeyay xarunta dambi baarista ee CID-da waxaana hadaladiisii ka mid ahaa gudoomiyaha. runtii maanta mucjiso meeshan ku aragnay 3 maalin ugu dambeysay waxa la baafinayay gabar yar oo ilmahan iskuulka dhigta masaajidada xaafadda iyo xitaa warbaahinta qaarkeed oo baafin ku sameeynayay runtii gabadhiya waxa lagu arkay saakay digsi weyn oo digsiyada sabta ayadoo ku dhex jirto digsi weyn kala kor saaran yahay joodariyaal iyo alaab ka koreyso ciidda subaxdii hore waxay dhaayeen doolima guriga ku dhintay wax sacamal laakiin markii la galay waxa la arkay gabadhii la baafinayo oo go'go'day oo meesha ku jirto waxyaaba mucjisada waxa kamid ah inay xirxirneed oo lugaha iyo gacmaha iyo ka xirneed runtii tuuna jiro oo qoladii CID-da imaaday ma gowracneen gabadha laakiin fal kale inuu dib ku dhacay loo maleynaa maadaama guriga hooyada ay ka maqnayd aabii ka maqnaay guriga cilla ahay laba wiil oo qaraabal ah ay joogtay oo qaangaara ah marka iskuulka markay ka imaaday in dib loo geystay waxa sax laga shakisan yahay kadibna uu dil asas loogu sameeyay xariga laakiin ku cijisneed gabadha gurigeeda waa qolkoodii aab lagu xirayba marka waxa la yaab leh familka qolkan ma isticmaalayeen mas uu iska xirnay in la ogaado dibka ku dhacay ma kufsiya ma si kala loo dilay ma ragana ka dambeeyay ma cid kale ka dambeysay runtii baaritaan jiro qoyska dibka gaaray ma ay kaligooda degan mas'uulada degan qoyska waxa la joogeen laba wiil oo qaraabe ah hooyada iyo aabaha iyo ilmaha waxa la joogeen wiilal qaraabe ah abti ma u yahay masadeer u yahay wiilal si sax joogen wiil kamid ah iskuul jira wiil kamid ah nala jooga oo xogaa dhagaha ka culus dhamaantood saldhigan geed doona meedka CID-da la geeyna waxa la baaraa gabadhan qaabka u dhimatay. muddooyinkii dambe waxaa Soomaaliya ku soo badanayay dilalka naxdinta leh ee loo geysanayo gabdhaha yaryar waxaana dilalkaas qaarkood ay ahaayeen kuwa ay ka horeeyeen falal kufsi ah inkastoo aan la xaqiijin karin in gabadhan la kufsaday ka hor inta aan la dilin. Cabdifataax Shaarkey, STN TV, magaalada Muqdisho.